Dr. Anthony DiCarlo waa gabadh u dhalatay wadankaasi Mareykanka isla markaasina ka shaqeysa horumarinta beeyada oo sanadihii la soo dhaafay warbaahinta maxalliga ee Somaliland ay ka warramaysay eedayada ka dhana oo ku saabsan inay waxyeelo u geysanayso nidaamka ganacsiga ee geedka beeyada oo ay ku takhasustay cilmiga deegaanka gaar ahaan geedkaasi beeyada. haweenadani oo ku soo laabatay magaalada Hargeysa ayaa warbaahinta waxay uga warrantay inay maqashay warariyada ka dhana oo lagu baahiyay saxaafadda Somaliland balse ay ku faraxsan tahay inay dhinaceeda fursad u heshay inay ka waranto eedeymahaasi loo jeediyay. So pleased to have journalists from Somaliland starting to ask questions to me directly so that I can speak for myself. waxayna sheegtay inaanay jirin wax alla wax ay qarinayso isla markaasina dawladda Somaliland iyo bulshadaba ay u sheegayso ujeedada ay halkan u yimaadeen. Nothing to hide, that absolutely anyone, I'm open to speak with anyone. waxyaabaha ay u socotay ay Somaliland u timidna waxay ku sheegtay inay doonayso in maalgelin lagu sameeyo dadka beenyeeleyda. waxay sheegtay in taariikhda marka dib loo raaco dadka reer Somaliland ay beenyada u iibgeyn jireen wadamada shisheeye balse waxa ka fiican ayaa ay tiri in Somaliland gudaheeda lagu maalgeliyo dadka beenyeeleyda si gudaha Somaliland loogu shiilo dabeetana ay u dhoofiyaan wadamada dibadda. Throughout history, the resins of frankincense from Somaliland have been sold to other countries. They're not distilled into oil here. Somaliland waxa ku nool dad soo dhaweyn fiican laakiin waxaan la kulmay caqabado badan oo noo saamixi waayay inaan qabanno hawlihii aan u nimid Somaliland anagoo ogolaashaha dhaqdhaqaaqa ka haysana wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland lanoo ogolaadan inaanu ka baxno Hargeysa iyo Burco haddana marar badan lanaga joojiyay isla markaasina lana xidhay iyadoo aan lanoo cadeynin sababta lanoo xidhay. The Ministry of Interior and permission to travel outside of Hargeisa and outside of Barao even was to arrive in Aragavo to confirm that the land had been purchased and to lay the first stone to build a hospital in Aragavo. sababta aanu Aragavo u tageynay waxay ahayd inaan soo xaqiijino dhul aan cisbitaal ka dhisi lahayn oo aan ka iibsanaynay magaalada Ceerigaabo taasi oo ah baahi ka timid shacabka reer Ceerigaabo balse nasiib darro saddex jeer ayaa xabsiga lana dhigay xukun la'aan anagoo Ceerigaabo ku sii jeedna. And so we were stopped without any charges or any reasons and detained 3 times trying to get to Aragavo. sidoo kale waxa la naga celiyay inaanu tagno deegaanada gobolka Saaxil from going into that region of Sahel to do an analysis of what the community needs. waxa kaloo ay sheegtay inay soo gaadheen fariimo isugu jira hanjabaad iyo cagajugleyn oo loogu hanjabay in la dili doono. I have personally received death threats. We have been intimidated, but it's a small group of people who are instigating this to hurt a very large growing region. waxaa Dr. Anthony DiCarlo ay sheegtay inay jiraan dad kooban oo dabada ka wada arrimaha lagula kacay kuwaasi oo doonaya inay Somaliland u soo jiidaan sumcad xumo ama ay beesha caalamka tusaan inaanay Somaliland ahayn meel nabada balse dhankeeda waxa ay sheegtay inay Somaliland tahay meel ay nabadgelyo ka jirto. Seem like it's unsafe when actually it's quite safe here. Saciid Aadan Jaamac, Television Cable, magaalada Hargeysa.